kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidha email kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena ku dul istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaadha dalka Itoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida qodobada aad ku maqli doontaana waxaa kamid ah militariga dalkaasi Itoobiya waa makalakayaga ayaa afayeen u hadlay waxa uu tilmaamay in ay hub military oo aad u fara badan oo loo waday waa baabuur xeeran loo waday nimanka lagu magacaabo faano gacanta lagu dhigay waxa uu sheegay hubkan oo isugu jira hubka fudud iyo waliba hubka culus oo lagu galbinaya gawaarida xamuulka in ay gacanta ku dhigaan waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qirtay intii uu xukunka hayay inuu wax badan khalday sidoo kalena wax ka bedeli doono constitution-ka ama dastuurka u yaala dalkaasi Itoobiya si ay u yimaadaan maalgashayaal caalami ah loogana baxo xidhxidhka ay ku jirto dalkaasi Itoobiya isagoo sheegay in kooxdii hore ee EPRDF ee TPLF ay hogaamin jirtay ay wadanka xidhxidheen waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan nin ka soo jeeda gobolka City oo aqoon-yahana ayaa sheegay in aysan weligood ku biiri doonin aan idhaahdee deegaanka canfarta waadana kirada asagoo ku tilmaamay in war hore aan halkan ka sii dayno Itoobiya ay doonaysay inay gabi ahaanba gobolka City ay raaciso deegaanadaasi uu sheegay in aysan dadka shacabka ee halgamiyaasha ka soo jeeda gobolka City aysan marraba aqbalayn inay ku biiraan deegaanadaasi sidoo kale waxa uu noo sheegay in maalintii shalay uu dagaal xoogan uu ka bilowday meesha lagu magacaabo amaba meel u jirta degmada Dhuunyar 50 kilomitir dhanka galbeedkana ka xigta waxa kale uu sheegay in ay aan idhaahdee dad aad u fara badan oo maxaabiisa gacanta lagaga dhigay danaakirada sidoo kalena dhaawac iyo dhimasho fara badan loo geystay xoogagii soo duulimaatay waxa uu sheegay dagaalkii shalay subax bilaabmay inuu istaagay 10kii galabnimo dagaalaad culus ayuuna ninkaasi aqoon-yahanka ee dibadda ku sugan noo sheegay ee ka soo jeeda gobolka City haddaba isagoo faahfaahsan ayaa daawadayaal ku maqli doontaan warka uu noo sheegay hadduu Rabbi idmo waxa kale oo barnaamijkeena aan ku qada dhigi doonaa siyaasiyiinta iyo waliba mucaaradka ka soo jeeda dalka Soomaaliya oo si weyn ugu gacan sayray sidoo kale waxaana kamid ah idhaahdee siyaasiyiintaasi Xasan Cali Khayre oo ahaan jiray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya kusoo dhawaada mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijka igala qaybgeli doona saaxiibka Dr. Shidee oo asagoo inta badan indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee aan idhaahdee dalkaasi Itoobiya horta waxaan ku bilaabaynaa ninkan aqoon-yahanka ka soo jeeda gobolka City xiriir kala duwan buu nala soo sameeyay waad maqlaysay oo kolley dhagahaad ku maqlaysay in kastoo soo raalli ka noqonin in codkiisa deemaartay aan halkan ka sii dayno oo arintaas uu ka cudur daartay laakiin xogta uu inoo sheegay wuxuu yiri horta warkii hore sii dayseen buuri dadka shacabka ee gobolka City weligeed Allah way dagaalami jireen buur canfarta hadda ka hor bay dhul naga haysatay buur muddo 10 sano waagi dambana waxa weeye dagaal intaan ku qaadnay baa iska day dhulka inaga haysatay yaa dhul kale iyadii ka furanay buur nimanka lagu magacaabo danaakirada marka wuxuu yiri horta dadka gobolka ka soo jeeda marraba kuma biirayaan buuri ee reer City waa waliba qoyskaasi degan ama beeshaasi degan beelweynta beesha ciise deeganadaasi degan waa dad halgamayaal waa runtii waa dad halgamayaal oo midnimo badan oo in badan ma garanaysaa u soo dhabar adeega in kastoo dowlad deegaanka Soomaalida maleeshiyad fara badan oo ay leedahay ay deegaanadaasi ku sugan yihiin marka bal noo faahfaahay adigu waad maqlaysay meesha laftigeeda uu dagaalku ka dhacay magaceeda uu inoo sheegay iyo degmada Dhuunyar inay hoos tagto hadii bay ku soo ogol yahay marka bal warkaas inoo faahfaahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Cornel Faragodow waa dhab gobolka City khatar weyn buu wajahaya dagaal culus baana ka soconaya oo u dhaxeeya dadka deegaanka ee gobolka City iyo xogaga canfarta ee duulaanka ballaaran wada dagaalkan waxaad moodaa inuu hadda usbuuc galay inkastoo marka uu kala daraa xoogiisu maalmihii la soo dhaafayna ay aad xooga canfartu ay weerar ka qaadayeen laakiin maalinimadii shalay ayaad moodaa dagaalkaasi inuu noqday mid 24 hours socday oo intuu aroor bilowday ilaa gabaldhicii la soo gaaray 12 saacadood halkaas lagu iyadoo maalinka hore tan uu dagaal socday marka dagaalku dhulka uu ka soco waa deegaanka Gareeni oo hoos taga degmada Dhuunyar deegaan ahaan hoos taga inkastoo masaafo dheer ay u dhaxayso oo dhul 100 kilomitir ku dhow yahay 70 kilomitir ilaa 60 kilomitir ay Gareeni u jirtaa degmada Dhuunyar iyo deegaanadii ka horeeyay xoog way soo qabsadeen xooga canfartu guulo waaweyn ay sheeganayaan warbaahintooda waxay ku qorayaan
inay dhulkii ugu ballaarnaa Soomaalida ay ka qabsadeen dhul muddo dheer ay ku taameen inuu mar gacantooda soo galana uu gacantooda soo galay adana guusha ay ku taagan yihiin Soomaalidan hadda ay kula gorgortamayaan laakiin mas'uulkan wuxuu noo sheegay in dagaaladii Greni ka dhacay ee degmada Dhuunyar hoos tagay in aad loogu jabiyay sidoo kalena maxaabiis tir ahaan uu naga qariyay oo aad u far badan inay gacanta ku dhigeen oo guushu dhankan ma garanaysaa gobolka City iyo dadkeedaba ay gacanta ku hayaan way jirtaa oo dagaal haduu dhaco markasta guuli guurtare labadaba waad filanaysaa qolada weerarka waa Canfarta Soomaalidu weerar ma qaado Soomaalidu difaac bay ku jiraan Soomaalidu difaac bay ku jiraan dhulkii ay joogeen markii hore dhul badan barta Canfarta san wada soonahay dhul badan bay soo qabsatay wada dhul yar ma dhulkay soo qabsatay waxay soo qabsatay Garbaciise waxay soo qabsatay Candhuufo waxay soo qabsatay Cadeytu waxa hadda lagu dagaalamay waa Dhuunyar inta ku taala Dhuunyar waxay ku taala waa dhulkii bartamaha gobolka ahaa waa dhulkii madaxweynaha deegaanka Soomaaliya dhulkii dambe uu dadka dibadejinta ugu sameeyay waa maanta ruux Soomaaliya kumuna fikireynin Dhuunyar waa laga steeday hadda Greni baa la maraya Greni oo gudaha deegaan ku jirta oo 70 kilomitir masaafo dhan deegaan gudaha ku jirta ka dagaalamayaan Dhuunyar waa la iskala soo tagay Soomo iyo dhulka balaana waa la iskala soo tagay marka nimanku meesha ka dagaalamayaan meel aan hadda guul adan Soomaalina guul sheegan karama Soomaali hadaan nahay waan ku fashilayna dagaalkaas inkastoo dadka deegaanka ay dagaalamayaan wada dagaalka hadda maanta socdaba uu dagaal yahay Canfarta ay ku jabayso laakiin Canfartu dhul kale sii raadinaysa jabitaankeeda hadaan dhulkii laga saarin muxuu sheegay dhulkiina ay ku sugan tahay dhulkii gudihiisa Soomaaliya ka dagaalamayso waxa guul lama dhaho laakiin dagaal uu dhacay waa la jabiyay meedkooda iyo dhaawacooda ayaa meel kasta daadsan maxaabiistooda la hayaa laakiin sidaa ay tahay waxay ku sii dhiireen meesha ay wiilashooda ku dhamaadeen in bari gacanta ku dhigaan ay ku sii dhiireen soo dhulka ka balaanaa bay saystaan marka dadka reer gobolka City guul uma ahaan karto Greni baan ku dagaalamay dad baan Canfar baan ku laayay maxaabiis baan ka qabsaday guul lama dhaha taas maanta waxay guul u ahaan lahayd in la dhaho qubuurihii shuhadada Garbaciise ku dhamaaday iyo Candhuuf iyo Cadeytu ku dhamaaday ayaan maanta joognaa shuhadadii baan dul joognaa dhulkii baan ka saaray meeshaas aan guul sheegan lahayn laakiin inaan dhahno Greni oo ognahay Dhuunyar oo bartamihii deegaanka Dhuunyar dadka maleeshiyaadka iyo dadka shacabka gacanta ku haya Dhuunyar iyo Greni baa dhanka galbeedka sii xigta oo Grenidu waa dhanka shisha weeye Dhuunyar way sokaysaa marka meesha lagu dagaalamayo waa Dhuunyar bay hoos tagtaa waana Greni way meesha lagu dagaalamayo marka meelaha gacanta lagu hayo waxaan jeedaa ay Canfartu gacanta ku hayaan waa Garbaciise iyo Cadeytu iyo deegaanadaas way hadda ka hor ay gacanta ku dhigeen ka soco marka dagaalkani waa dagaal aad u qarar waa dagaal u baahan Soomaaliya oo dhan inay midido waa dagaal u baahan dhulka in lagu difaaco sidiisaba dad waa la helaa laakiin dhul lama helo haday maanta Canfartu dhulkaasi qaadato dadkan galbeedka City waa inay ku xisaabtaan inay dhul heleen dhulka waa hore la qaybsaday maanta hadda waan guureynaa hal maalin meel aad tagtay meel maartay irtigaaga iyo gaarigaagana rarka laga furo maayo meel adeegsan male marka waa in ay reesit u diyaar garoobaan haday dawladda deegaanka Soomaalidu ay difaaci weeday in ay u isdifaacaan oo maartay duqiyo waayelba ay dagaalka galaan waa inay isu diyaariyaan aqoonyahankuna waa inay warbaahinta yimaadaan oo si live u soo fadhiistaan si ay dadka ugu sheegaan waxa dhabta jeedalkan loo dhiirigeliyo aqoonyahankani wuxuu